ninkii markii uu foomkii uu buuxiyay maamulkii diyaaradda ayuu warqadii wuxuu ku qoray anigu waxaan jeclahay Allah ninkii duuliyaha diyaaradda saarnaa ee mas'uulka ka ahaa kabtanka dhan diyaaradda markiiba argagax ayaa galay go'aan ayuu qaatay wuxuu yiri ninka diyaaradda saaran waa nin doonaya in diyaaraddu isku qarxiyo assalaamu calaykum Soomaalidu waxay tiraahdaa nin adduunyo joogo maxaa aragtay ku laaban maanta dunida waxay maraysaa hadii qof muslim ah uu qalin kor u qaado aad looga cabsado hadii uu dhagax kor u qaadana la leeyahay waaba argagixiso hadii uu yiraahdana Allahu Akbar waaba ka daro dibadal oo kala cararka adduunka ayaa dhacaya dhacdadii ugu yaabka badneyd ayaa maalintii Talaadada ahayd waxay ka dhacday wadanka Talyaaniga diyaarad ayaa waxay ka soo kacday wadanka Faransiiska iyadoo markaasi ku sii jeeday Qaahira oo Masar ah diyaaradii markii ay ka kacday wadanka Faransiiska oo ay dul mareysay wadanka Croatia ayaa mid kamid ah rakaabkii diyaaradda saarnaa oo ahaa nin u dhashay wadanka Masar da'diisana lagu sheegay 29 sano jir ah waxa uu dareemay xanuun kadibna maamulkii diyaaradda ayuu wuxuu ku wargeliyay inuu u baahan yahay daawo ama gurmad maamulkii diyaaradda ayaa ninkii waxa ay siiyeen daawo markaasi xanuunka hay uu kula tacaalo kadibna waxay u keeneen form ama warqad form ah oo markaasi uu ku buuxinayo daawada uu qaatay nuucay tahay dosagekeeda iyo xilliga uu qaatay iyo wax la mid ah ninkii markii uu formkii uu buuxiyay maamulkii diyaaradda ayuu warqadii wuxuu ku qoray anigu waxaan jeclahay Allah saintaas kadib shaqaalihii waxay diyaaradii u geeyeen pilotkii ay warqada u geeyeen oo waxay yiraahdeen ninka warqada wuxuu ku soo qoray formkii uu buuxinayay waxaan jeclahay Allah ninkii duuliyaha diyaaradda saarnaa ee mas'uulka ka ahaa kabtanka dhan diyaaradda markiiba argagax ayaa galay go'aan ayuu qaatay wuxuu yiri ninka diyaaradda saaran waa nin doonaya in diyaaraddu isku qarxiyo waa halis arinta markiiba isagoo dul maraya wadanka Croatia ayuu wuxuu la xiriiray madaar ku yaala wadankaasi Talyaaniga ee Roma wuxuu u sheegay in xaalad argagax leh ay ku jiraan saas darteedna diyaaradda ay u soo weecin doonaan dhanka Roma una diyaar garoobaan ciidamadooda si markaasi xal loogu helo ninka damacsan ee in diyaaradda wax uu ku dhex sameeyo diyaaradii inta ay u soo socotay Roma waxa bilaabatay ciidamadii Talyaaniga iyo gurmadka iyo miigag iyo adduunka la kiciyay diyaaradii ayaa la soo dejiyay markiiba ciidanka Talyaaniga waxay gudaha u galeen diyaaradda waxay soo dejiyeen dadkii rakaabka ahaa guud ahaan sidaas oo kale ninkii kabtankii diyaaradda wixii dhan ayaa meel soo keenay muddo kadib ninkii ayaa su'aalo lagu bilaabay oo waxa la yiri maxaad sameysay adiga sidaa anigu waxaan sameeyay ma ogi ayuu yiri ninkii kabtankii diyaaradda ayaa loo yeeray waxa la yiri adiga ayaa soo wacay ninkan muxuu sameeyay wuxuu u sheegay ninkan in xanuun uu qabsaday in diyaaradda markay dul mareysay wadanka Croatia kadibna form uu buuxiyay formkiina uu ku soo dul qoray Allah ayaan jeclahay ana uhibbullah marka saas darteed ninkan waxaan ugu shakinay inuu yahay nin argagixis ah oo doonaya inuu fal uu sameeyo diyaaradda dhexdeeda ku sameeyo ninkii ayaa la wareystay waxa la yiri maxaa saan u sameysay waxna uma sameeyno yiri aniga Allahayga ayaan jeclahay oo kaliya wax dhibaato ma jiro sababtoo maanta markaad wadamada reer galbeedka aad ku nooshahay aad tiraahdo I love God waan jeclahay Allah God Englishka ay lagu yiraahdaa wax dhibaato ma arkaan hadii aad afku hindida aad ku tiraahdo aniga waxaan jeclahay Ramesh ama wax kale dhibaato ma arkaan ama hadii aad tiraahdo God save the queen ama aad tiraahdo boqorada Allah yaani hanabad geliyo ama cimrigeeda Allah dheereeyo oo aad ku tiraahdo God wax dhibaato ma arkaan laakiin hadii afka Carabiga aad ku tiraahdo Allah argagax ayaa ku dhacaya sidaas darteed baaritaankii waxa la ogaaday in qalad yaani ninkii duuliyaha diyaaradda isfahmwa oo ka dhaxdhacay waxa la amray diyaaradii shaqaalaha iyo dadkii kale rakaabkii saarnaa inay diyaaradooda dib ugu laabtaan oo safarkoodii ay sii wataan oo ay ugu sii jeedeen wadanka Masar laakiin ninkii Masriga ahaa ee isaga xanuunka qabsaday ee warqada ku qoray in markaasi uu Allah u jecel yahay diyaaradii waa laga reebay oo waxa la yiri adigu waad xanuunsantahay hadda diyaarad kale ayaan ku saari doonaa sidaas darteed la soco
mid ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee diyaaradda markhaati ka ahaa goobjoogna ka ahaa lagu magacaabo Pierre ayaa waxa uu sheegay warbaahinta uu sheegay in ninkaasi uu xanuun uu dareemay marnaba wax dhaqdhaqaaq kale uusan sameeynin uu ahaa nin aad u degan oo kursigiisa iska fadhiyay xitaa shaki yar aan marnaba laga aqabin maadaama wuxuu yiri aan ag fadhiyo aniga marna aan ka dareemin ninkaas in wax dhibaato uu sameynayo saas darteed xitaa gaaladii ayaa la yaabtay falkii markaasi uu sameeyay ninkii kabtankii diyaaradda maanta waxay maraysaa dagaalkii Gaza markuu u dhacay ninkan sababta masriga ah looga shakiyay wax kale maahan waa nin carab ah oo muslim ah oo haddana afka carabiga ku soo qoray Allah waan jeclahay waxaan la soconay dhacdo ka horeysay oo diyaarad oo markaasi Malaysia ay leedahay oo nin muslim ah oo ku dhex dukaday wadada diyaaradda dhexdeeda ninkaas waxa la dhihi karaa uu yaraan qiil ayaa loo raadin karaa oo wadadii dadka ay wada isticmaalayeen ayuu salaada ku dukaday laakiin ninkan diyaaradii oo dhan waxa qarash labaad loo geliyay iyadoo Croatia maraysa in laga soo weeciyo lana keeno Roma si loo baaro ninkaasi oo looga shakiyay inuu yahay nin argagixiso ah oo markaasi fal dambiyeed doonaya inuu ku sameeyo dhacdani hadda waxay la yaab ay ka tahay wadamada reer galbeedka oo waxay ku sii abuureysaa cabsida ay ka qabaan dadka muslimiinta halka dadka kale qaarkood ay leeyihiin muslimiintu waa dad caadi ah oo aan wax dhibaateynin dagaalka Gaza intuu hadda bilowday UK oo kaliya iska daa Mareykanka iyo wadamada kale UK oo kaliya waxa soo islaamay boqolaal iyagoo ogaaday xaqiiqda dhabta ah iyagoo ogaaday xaqiiqdii laga qarin jiray oo ahaa in muslimiinta ay yihiin dad wuxuush ah laakiin alla weyne subxaanahu wa ta'ala dagaalkaas hadda ka socda Gaza wuxuu sababay in kumanaan Christian ahaa inay soo islaamaan qaataanna diinta islaamka iyagoo ogaaday xaqiiqda dhabta ah xaqiiqda waxa maanta duulaanka loogu hayo wadanka Gaza oo Falastiin ah waxay ogaadeen sababta caruurtaas loo leeynay inay tahay nacayb loo qabo muslimiinta bal ka waran maanta adoo magaalada wareegay hadaad Allahu akbar iska tiraahdo Allahu akbar wallahi wax joogaayo bar qof walba meeshuu ka boodi karo ayuu ka boodaya wax kale ma hadaad tiraahdid oh my god hadaad iska tiraahdid adoo iska jimicsanaya wax dhibaato ma jiro god oo dhibaato ma arkaan لكن هدات او ماي الله هدات ار بسم الله ار كوانا سيده لو جبسanayo ma malin karta Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Talyaaniga oo kaliya ayaa hadda waxa laga soo warinayaa dad si tarab ah markaasi ay u soo islaamayaan islaamnimada u qaadanayaan iyagoo si live looga daawanayo baraha bulshada iyagoo markaasi ogaaday xaqiiqda dhabta ah Mareykanka iyo Yahuudda iyo wadamada kale markaasi damcoodu inuu yahay in ay laayaan guud ahaan muslimiinta dunida ku nool gaar ahaan dadka Falastiiniyiinta iyadoo markaasi loogu marmarsiyoonayo inay yihiin dad argagixiso ah fadlan walaal haddii aad qisadan ka heshay la wadaag asxaabtaada kuna soo biir channelka idaacadda Buul Xubay iyo page-kayga Asana Usman Xaji. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.